halkani waa raadiyo Boorama aan Soomaali Canadian TV. runtii waxaan soo gaaray magaalada Buuhoodle oo ah magaalo ka mid ah magaalooyinka deegaanka aanu leeyahay waxayna ahayd booqasho caadi ah oo aan halkan ku imid waxaan halkan kula kulmay odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka oo ay ugu horeeyaan uqaasha ningarboodka culimada iyo dadka waxgaradka ah kale waxaanu iska wareysanaynay danaha deegaanka aanu u dhalanay iyo dadkayaga iyo waayaha iyo waqtiga hadda ay ku jiraan iyo duruufaha iyo xaaladaha hadda socda waxay ahayd isxog wareysi dad ehel ah oo isu yimid oo iswareystay ka tashaday wixii dantooda ah wixii aanu isugu nimidna si wanaagsan baanu isla halkani waa radio Boorama oo aad ka dhageysanaysaan muujada 1.7 FM iyo barnaamijka Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan ummadda Soomaaliyeed barnaamijka gufaaco ka dhageysta radio Boorama kana daawanaya Somali Canadian TV waxa magaalada Boorama ku xiran dhalinyaro gabdha ah iyo wiilal lagu xiray xaq darro waxa caawa magaalada Boorama naga soo gaaray warka aanu hayno markay ahayd caawa 2:06 habeenimo maray ahayd 2 habeenimo iyo 6 minute saldhigga ku yaala Birmad oo u dhow Faaraxyood iskuulka Turkiga oo ahaa habeenkii hore halkii lagu weeraray gabdhaha lagu qabtay iyo wiilasha ayaa caawana waxa la weeraray oo lagu qaaday weerar saldhigga Birmad ee ku yaala Faaraxyood waxa arintan loo xaqiijiyay igaalada magaalada Boorame ilaa imika dhibta iyo dhaawacu wuxuu yahay rasuul xoogaabay socotay isweydaarsanayay wixii gadaal ka soo kordha waxaynu ka maqli doonaa warka waxaanu ma gaarsiinaynaa in dhib weyn ka taagan tahay arrimaha ku saabsan dhalinyarada xidhiidhidooda oo dhalinyarada magaalada Boorame aad u kacsan yihiin oo ay dhib hayso isla markaana ay rabaan inay noqdaan kuwo xor ah oo u bannaan hadalkooga iyo calanka Awdal State oo ay wataan haddaba ummadda barnaamijkan dhageysanaysa wixii gadaal ka soo kordha waxaynu ka maqli doontaan radio Boorame waaniga tafaqatira radio Boorame oo Xaamid Cali Cilmiya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh